halkan waa beerta jaadka magaalada Muqdisho waana suuqa ugu weyn ee uu ku soo degto laguna kala qaato jaadka yimaada magaalada ganacsato rag iyo dumarba leh oo xiisuuq qaba imaatinka jaadka Kenya oo muddo xayirna ayaa isugu soo aruuray gaariga sidee jaadka oo goobta yimid jaadka nooca loo yaqaano miroga oo dabayaaqada 2022 laga hakiyay dalka ayaa mar kale dawladda Soomaaliya aqbashay in dalka la soo geliyo kadib heshiis siyaasadeed iyo isweydaarsi ganacsi oo horaantii bishii July 2022 ku dhex maray magaalada Nairobi madaxweynayaasha labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya Xaliimo Yuusuf oo muddo dheer ka ganacsanaysa jaadka ayaa xustay inay dareemayaan culays hor leh oo dhinaca qiimaha ah miroga waxa way farqi badan baa u dhaxeeyo 12 dalaal baa meesha u fadhiyo ninba lacag buu ka rabaa annaga waa ku wareernay meel aan wax ka raadin annaga lacag badan aan ugu siinaa hadhowna lacag yar baan gadaynaa doomaha markuu ahaabo xoogaa roonaa oo waxaan ka helaynay normal meed 25 aan laga qaad 30 baan laga qaad jiray doomihii kan hadda 25 laga qaaday in 25 iska dhaaf 15 cid kuma rabto ka Ethiopia ka imaanay hadda intuu mirogu soo bilowday xoogaa beeciisu waa degan waa dhama mirow yacnaa suuq ahaan markii la yiraahdo mirow waa la jeclaan jiray laakiin hadda mirow beeciisa tirada ka badan cidna ma rabto waa sidee mustaqbalka kobaca dhaqaale dal wali ku jira xaalad soo kabasho dhaqaale ahna mid aan isku filnayn haddana malaayiin dollar ku bixinaya soo dhoofinta qaadka Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa sharaxaya Kenya waxay sheegtay isbuuc gudaheed ama 10 maalmood gudahood in lacag 1.2 milyan dollar ee ka heshay Soomaaliya taasoo muujinaysa dhaqaalaha aadka u tirada badan leh ee Soomaaliya uga baxo jaadka dhaqaalaha waa minus oo ku jira oo uu si liica marka haddii aan sii socoto arrintan dhaqaalihii ebil markii hore yara hoos u sii dhaca wax soo saarkii beeraha oo markii hore liita dhalinyaradii wax soo saar lahaa haddii jaadku mashquulaan idan dhibaato ugu imaanayso marka in dhaqaalihii macnaha rajo badan lagama qabi doono haddii aan la helin nidaam kale ganacsatadii dadka isticmaala qaadka miroga ee Kenya ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay go'aanada cad ay wada qaateen madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya kaas oo xayiraad loo qaaday jaadka miroga ee laga soo dhoofiyo dalka Kenya Shukri Maxamed Cabdi Bilan Media magaalada Muqdisho